asalaamu calaykum saaxiibayaal. Oday Ducaale waxa uu imika yahay rajada keliya ay leeyihiin Jamaal iyo Habboon. Waa rajada keliya ee jacaylkooda badbaadin kara. Inkasta oo xalqadii ugu dambeysay Habboon guriga ka carartay, taasina ay sababi karto in ay bilowdo amaba ay filimka u leexiso weji cusub, taasoo dhalisa in Habboon aysan dib dambe usoo laaban, sidaasina ay isku weyn Jamaal. balse taa inaga oo aan u tixgelina in Habboon ay durba soo laabanayso. haddaba arrintaasi waxaa soo baxaysa arrin kaleeto oo caqabad weyn noqon doonta, waa dhimashada Oday Ducaale. Oday Ducaale oo ayaamii u dambeysay ku mashquulay tasbiix iyo in uu xag alle usoo jeesto, halka bilowga filimka uu aada ugu mashquulsanaan jiray fadhi ku-dirirka siyaasadda iyo arrimahaasi. haddaba markaynu arrimahaas u fiirino, waxay u muuqataa inuu Oday Ducaale uu dhimanayo, taasi oo daaqadda ka saari doontaa in sirtaasi ay fashilanto. waa sirtii ay islaanta Amran u degtay Habboon iyo Jamaal, taasoo ku aadanayd in la yiraahdo labada nina sii wada nugeen, sidaasina ay ku kala xaaraantinoobaan. haddaba dhimashada Oday Ducaale waxa ay laf dhun gashay ama caqabad weyn oo hortaalla ku noqon doonta Jamaal iyo Habboon. waxaa dhici doonta in islaanta Amran ay marka ka noqoto islaanta guriga ka ah qofka ugu weyn, iskana leh talada ugu dambaysa go-aan kasta iyo xaalad kastaba. xalqadii ugu dambeysay sidoo arkaynaba, Oday Ducaale waxa uu u muuqday mid dhanka Habboon la jiray, islamarkaasina mar walba niyadda u dhisayay, kuna qancinaya inaan lagu khasbaynin qof aysan rabin oo ay tahay qof wax baratay qaangaar ahna. haddaba marka Oday Ducaale uu baxo, taasi waxay noqonaysaa wax tegay. haddaba taasi waxaa laga yaabaa inay sababto ama ay keento in Habboon iyo Jamaal ay ugu dambeynta iswaayaan, maadaama cid sirtaasi u sheegta la waayo. waxaa sidoo kaleeto macquula in ay jebiyaan xeerarkaasi oo dhan, oo wax kasta ha dhacaane ay ku dadaalaan inaysan kala tegin. taasi waa macquul, waxaana macquul ka dhigayaa in labadooduba ay imika u muuqato in jacayl weyn ay isu qabaan. haddaba saaxiibayaal, halkan waxaan soo gelinaa falanqeyn arrintaas ku saabsan. haddaad doonaysid, halkan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladaasi iyo kuwo kaleeto xiise leh oon halka soo dhigno. waa mahadsantiin dhammaantiin. sidoo kaleeto haddii aad doonaysid muuqaallo horeeto oo aan soo gudbinay, kuwaas oo la xiriira aktarka Jamaal iyo aktaradda Habboon iyo weliba Oday Ducaale nafkiisa, Xirsi, Ismahaan, Amran iyo qof kasta oo filimka ku jira, waxaad ka heli kartaa qaybta filimka ee aan halkan mawduucyada ka soo gelino. waa channelka 5 daqiiqo. aad u mahadsantiin dhammaantiin.